sheekh waa maxay xukunka in la xidho xafladaha takharujka marka jaamacadaha la dhameeyo oo kale koofiyado iyo dhar u gaara in la xidho haddii ay asal leedahayna asalkeedu xaggeebu ka soo jeedaa wuxuu kaloo saa'ilku leeyahay sheekh tayga in la xidho xukunkiisu muxuu yahay falyatafadal mashkuuran maajuuran بسم الله الرحمن الرحيم xafladaha qalin jabinta jaamacadaha iyo macaahidda iyo iskuullada iyo goobaha waxbarashada su-aasha in la isweydiiye ay tahay waxa weeye ma cibaada mase waa iska caadaad haddaad tidhaahdo waa cibaado marka waxay u baahan tahay in aan lala imaanin ilaa bidaliil hadday caado noqotona asalku waa inay iska bannaan tahay oo antum aclamu biumuuri dunyaakum bay iska noqonaysa shaygu mar hadduusan cibaado ahayn oo wax qurbo ah iyo ilaahay ugu dhowaada ayna meesha ku jirin wax madara iyo dhib oo marka uu xambaarsan yahayna aysan jirin taqliid iyo cid kaleeto oo maalan la iska raacayo gaale iyo tashabuh bilkaafiriin ama kufaar ayna ku jirin wax baasa iyo dhibaato ma laha ama masalada ku saabsan muxuu ahaayey tayga ku saabsan culimmada qaarkood way ka dayriyaan qaar waxayba yidhaahdaanba ma aqaano meelahaas iyo kaniisadihii waxbay macatab iyo waxbay salka u saaraan qaar waxay leeyihiin meeshii doonay asirkiisa ha ka soo jeeday laakiin labis caamuu noqday laba gooroba ma jasmin karo waa xaaraan laakiin in la iska daayo oo maadaama hadalba galay ixtiyaatan iyo khuruujan min alkhilaaf in faraha laga qaado la iska daayo ku xidhashadiisa ayaa ila fiican oon ku talin lahaa wallahu aclam